الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم isagoo nabigiisa la hadlaya Muhammad sallallahu rabbi wa sallam alayhi wuxuu ku yiri naxariis sababteed oo Ilaahay xaqiisa ka ahaatay oo ku naxariistay sababteeda ayaa dadka ugu dabacsanaatay dabacsan oo dabeecad macaan oo la jecel yahay waxaad ku noqotay naxariis Ilaahay ku siiyay waay dabeecad macaan waana naxariis wuxuu Alla yiri tabaaraka wa tacaala hadaad ahaan lahayd mid hadal qalafsan oo qalbi adag qalbigiisana naxariis aysan ku jirin hadal xun oo hadal qalafsan hadaad ahaan lahayd dadku waa ka kala carari lahaayeen idina kuma soo dhawaateen lagumana soo urureen idina kuma raacdeen ee waa laga kala carari lahaa Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala fa'fu anhum khaladaadka dadku galayaan ay ka galayaan iska cafi ilaahayna dambi dhaaf u weydiiyo inuu saamaxo arrimahana kala tasho oo ka talagali oo dadka qiimee markaad go'aan gaadhana ilaahay tala saaro meesha waxa ka muuqata dabeecadda dabacsan ee macaan waa naxariis alle adayga iyo qalafsanaanta iyo naxariis darrada iyo afxumaduna waa ciqaab in lagu ibtileeyo dabeecad noocaasa waa imtixaan iyo ciqaab weey sida aayada laga fahmayo maxay yeelay waxay keeni kartaa adduunkana inaad mambuud noqoto laga kala cararo haddaad risaale iyo message iyo mabda wadatayna mabda'aagi inaan la qaadanin cidina kugu soo ururin laga kala fiigo haddii kale tan aad noqoto tuka cambaar leh iyo neef cadha qaba ruuxii ku arkaba waa ka sii cararaya adduunkana aakharana ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa waxaad ka mid tahay adoomada ilaahay ugu nacab yahay ugu shar badan nabigeena salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi kama fi sahih al-bukhari wa ghayrihi aisha hadithka ay warinayso waxay tiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maalmaha kamida nin baa weydiistay inuu u soo galo idan weydiistay inuu nabiga u soo galo sallallahu alayhi wasallam rasuulku markuu ninkii arkay ayuu wuxuu ku yiri cashiirada walaalkood waa ninkan soo socda waa nin baas leh way cashiirada wiilkooda waa isaga waa nin baas leh waa nin xun way hadalka Aisha way maqlaysaa laakiin ninkan soo socday soo galayay ma maqlaya markaa inta markuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii baa soo galay nabigu la fadhiistay sallallahu alayhi wasallam markuu nabigi la fadhiistay rasuulku sallallahu alayhi wasallam dabeecad furan iyo waji furan iyo hadal dabacsan buu ku soo dhaweeyay ninkii waa baxay waa tagay markuu tagay ayay Aisha ummul mu'miniina halka su'aali uga soo baxday oo rasuul ilaahay oo ninku intuusan ku soo gaadhin oo banaanka soo socday markaad aragtay hadalkii la ogaabaad ku hadashay markuu kula fadhiistayna waad u dabacdo hadalkana waa u dabcisay wajigana waad u furtay dabeecad furanna waad kula dhaqantay see wax u jiraan nabigu wuxuu ku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayha waasas ee Aisha goormaad igu ogaatay buu yiri in aanahay mid afxun oo dhaqan xun ma dabeecadaasan leeyahay nabigu ku yiri sallallahu alayhi wasallam dadku hadduu xataa sharlay oo ruux xumaan leeyahay inaan dabeecad xumo u muujiyo dhaqan xumo kula dhaqmoon afka u hadalka u adkeeyoon caayoon aflagaadeeyo
ama dhaqan xumo aan la qaabilay goormaad igu baratay buu nabigu ku sallallahu alayhi wasallam markaas wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam dadka ilaahay waxa ugu shar badan ruux ay dadku ka tageen oo ka carareen ittiqaa sharrihi sharkiisa iska ilaalinayaan ruuxa looga kala cararay sharkiisa ama afkiisu ku soo gaadha adinkiisu ku soo gaadha ama ku caaya ama dib ku geystaa fadhigiisa laga cararay la joogiisa lala cararay la socodkiisa laga cararay ruuxa xumaan uu watiyo dibkiisa dartii dadku uga kala carareen kaasa ilaahay agtiisa maalinta qiyaamada ugu shar badan manzila ahaana ugu liita buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam shaqaawo way marka in ilaahay tabaaraka wa taala dabeecad liidata oo khalqigii iyo adoomadii aad dhibto nafcigna laga waayay taa macnaheedu wax weeyaan inaad tahay adoon aan khayr lahayn saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlayay dadka mu'miniinta iimaanku wuxuu keenayaa inuu ruuxa dabeecadiisu dabacdo rasuulku sallallahu alayhi wasallam mu'minku waa ruux dabacsan waa ruux hayin ah waa ruux layliyan waa ruux garabkiisu dadka u dabacsan yahay waa ruux la soo dhaweeyo dadkana soo dhaweeyo waa loo soo dunmaa asaguna dadka waa dumaa khayr ma laha buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ruuxan dadkana soo dumaynin isagana aan loo dunmaynin aan laga agdhawaanaynin aan lala fadhiisanaynin oo laga cararayo kaasi khayr ma leh buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas daraadeed rasuulkeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dhaqanku ina baray kaas way iska dhaf dad khayriin ah dad ahlul khayr ah dad ahlul iimaan ah ina dabeecadii afxun iyo dhaqan xun kula dhaqantee kii uu nabigu sharka ku sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayuu hadana muaamalada iyo dhaqankii hadalka u hagaajiyay rasuulku salawaatu rabbi wa salaamu alayhi lianna diinteena tiirarkeeda asaasiga waxa kamida inuu ruuxu akhlaaq wanaagsan yahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ee adoomada lagu la dhaqmaayay waa ka nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi inay miisaanka xasanaadka wax walba ka culus tahay maalinta qiyaamada miisaanka xasanaadka shayga ugu culus rasuulku wuxuu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam inay tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan wuxuu tilmaamay nabigu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi dadka waxa ugu badan ee jannada galiyay marka la weydiiyo wuxuu yiri husnul khuluq akhlaaq wanaagsan dhaqan wanaagsan ficil wanaagsan hadal wanaagsan waji furan gacan furan khalqigooda wanaagaagu gaaro xumaantaada iyo sharkaagana aad ka ceshato taasa waxay tahay waxa u badanee dadka jannada geeya buu rasuulku yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka akhlaaqdaada inaad hagaajiso dhaqan xumada la dagaalanto haddii dabeecad xun lagugu ibtileeyay aadan isu dhiibin oo u istislaamin aadan moodin sida dad badan ismoodayaan ruuxaad isqabataanba inaad ka adkaataay raganimo maaha ruuxaad isqabataaneed murantaanba inaad ka raysaay raganimo maaha dadnimona maaha ruux alla ruuxaad aragtaba inuu kaa cararood isu haysato wallahi inaad dadkii oo dhan ka wada adkaatay taasi dadnimo maaha nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi yaani waxa weeye suracada ninka dadka wada lagdaay ruuxii ay ishelaan ban lagdo ka sara maray kaasi ma aha raganimadii adeega wanaagsani ma aha adeega wanaagsani waxa weeye in akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga aad dabciso sida nabi maxamed salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rabbigu ku tilmaamay saxaabadiisina ay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim wuxuu rasuulkeena leeyahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi miyaanan idiin warramaynin oo idiin sheegaynin ruuxa maalinta aakhiro marka la tago naartu korkiisa ay xaaraan ka tahay oo naar galaynin yuu yahay wuxuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waa adoon kasta oo hayin ah waa layliyan yahay xanaf male meel ku xagata male waa hayin layin wayo waa dabacsan yahay qariib wayo dadkoo dhan buu ka agdhowey dadkoo dhan baa jecel waa loo soo dhawaadaa waa lala fadhiistaa waa loo soo hiloobaa waa qariib min annaas sahlun wayo waa ruux sahlan oo basiit ah oon mucaqad ahayn ninkaa wayo ruuxa maalinta qiyaamada naartu korkiisa xaaraan ay ka tahay oo naar aan galaynin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wa salaamu calayh kii dabeecaddu ka hallowday oo shariirka ahaana waa ka aan soo tilmaanno ilaahay agtiisa mansilada ugu xun khalqigana ugu shar badani waa ruuxaas waay waa ruuxa ay
afxumada iyo dhaqan xumada adoomada ilaahay la qaabilaya rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi ma idiin sheegaa ma idiin kala caddeeya kiina sharka badan iyo kiina khayrka badan ma idiin kala qeexaa mid walba dabeecad wuxuu leeyahay dhaqan lagu garto noo kala qeex way rasuulullaahi maxaan ku kala garanaynaa ilaan dadkii waa ka nin walba waa labisan yahay nin walba waa iska quruxsan yahay masaajidii waa la wada gelayaa ganacsigii iyo hawlihii iyo adduunyadii waa la wada eryanayaa noo kala saar ka sharka badan iyo ka khayrka badan nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka idinku khayr badani waa midka wanaaggiisana la rajeeyo sharkiisana aamin laga yahay wixii wanaagee agtiisa yaalla waa la rajeeyaa cilmigiisa uu haysto dadka hunguri baa ka gala xoolihiisa waa la hunguriyeeyaa xooggiisa waa la hunguriyeeyaa wuxuu haysto wanaaga dadku waa damcaan leanna inay ka helayaan bay rumaysan yihiin wixii sharkiisa iyo xumaantiisa iyo afxumadiisa iyo dhaqan xumadiisana aamin baa laga yahay oo dadku waxay leeyihiinoo ku qanacsan yihiin wax dhib inaga soo gaadhi maayo war inaynu wanaag kala kulanno mooyaane kollay dhib inooga imaan maayo sidaasay leeyihiin kaasi waa dadka ka ugu khayr badan waa dadka ka ugu shar badani nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waa ruuxa aan khayrna laga rajaynin sharkiisana aan aamin laga ahayn wax wanaaga lagama helo lagamana doonto lagamana hunguriyeeyo sharkiisa iyo dhibkiisana dadku kama nabad helaan oo afkiisa iyo adinkiisa lagama nabad galo kaasaa addoommada ugu shar badan buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaynu dhaqan wanaagga ka qaadanno diinteenna khalqigana dhaqankaagu uu noqdo dhaqan ku salaysan naxariis iyo dabacsanaan iyo cafis iyo hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan khalqiga la qaabil ilaa diinteennu ay tidhaahdo wejiga ood furto iyo ilkaha ood ka muusootaay waa sadaqa markaad dadka la kulantay inaad weji furan kula kulanto oo markaad muxuu ahaye aad la kulantahay aad u dhoolla caddaysahay laf ahaanteedaa sadaqa ah laakiin haddaad weji macbuus noqoto dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa laga kala cararaayo shiriir baa tahay markaas khalqigaasi aad ku dhex nooshahay iyo addoommadaa aad dhex joogto waxa ay kaa haystaan baad ilaahay agtiisana ka tahay soomaalidu waxay yidhaahdaan saad isu haysata ma ahee waa sida lagu haysto ma aha saad adigu naftaada ka rumaysan tahay leanna ruux walba naftiisu waa la qumanta waa isla quruxsan yahay waa isla quman yahay waa isla wen yahay nadiif buu isla yahay marka saad isu haysata mehe waa sida dadku ku haystaan addoommada ilaahay ee mu'miniinteed ku dhex nooshahay waxay kaa rumaysan yihin baad ilaahay agtiisana ka tahay nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa la soo mariyey janaaza la soo mariyey meyd ayaa la soo mariyey la wado saxaabadii meesha joogay meydkii la waday ee qabrigiiyo aaska loo sii waday way ammaaneen wanaag iyo khayr bay ku sheegeen hebel nin la yaqaanu ahaa wanaag badan oo khayr badan nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam way waajibtay janaaso kalea la soo mariyey markaasay waxay ku sheegeen shar bay ku sheegeen nin fiican ma ahan jirin ruux fiican ma ahayn hebel soo ma ah nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam way waajibtay saxaabadu waxay rasuulilah maxaa waajibay middanna waxaa tidhi way waajibteen tanna waxbaa waajibay maxaa waajibay nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi middii hore eed wanaagga ku sheegteen ood ku ammaanteen jannaa u waajibtay janaasadan dambe ood sharkiyo xumaanta ku sheegteenna naar baa u waajibtay waa markhaati furka mu'miniinta idinkuna waxaad tihiin markhaatiyadii ilaahay ee dhulka joogay ilaahay markhaatiyadiisii wey iyaga unbaa maalinta qiyaamadana kugu markhaati furi doona sidaas daraaddeed dhaqankaagiiyo waxa kaa soo baxaya hagaajiso cumar ibnu khataab radia allahu tacaala canhu ardaah khaliifatu raashid ayaa sidaasoo kale isagana maalin janaaso la soo mariyey wajabat buu yidhi waa waajibtay mid labaad baa la soo mariyey siday taa hore u ammaaneen bay tan dambena wanaag ugu sheegeen iyadana wajabat buu yidhi tus saddexaad baa la soo mariyey markaasaa xumaan lagu sheegay way waajibtay buu yidhi cumar way weydiiyeen waxay yidhaahdeen oo maxaa ka wada way waajibtay maxaa ka wada
markaasuu wuxuu yidhi nebi maxamed baan maqlay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo leh ruuxii muslim ah oo afar ruux oo dadka iimaan kale mu'miniinta ay uga markhaati kacaan oo u qiraan khayr janna u waajibtay waxay yidhaahdeen labana afar sooma dhihin saddexna labana marka khalqiga ilaahay aad ku dhex nooshahay wixii ay kaa arkaan iyo dhaqanka aad kula dhaqanto iyo qaabka kaa muuqda afkaaga iyo addinkaaga kaas weeye waxa miisaanka fuulaya akhlaaqda hagaajiya afkana suubiya hadalkana dabciya dhaqankana hagaajiya addoommadana wanaaggaagu ha gaadho xumaantaada iyo sharkaagana ka cesho haddaad doonaysa ilaahay agtiisa tabaaraka wa tacaala wanaag iyo khayr inaad kala kulanto saluu wasallimuu calaa khaatami alanbiyaa'i waalmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik calaa cabdika warasuulika muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الأخلاق ونعوذ بك من سيء الأخلاق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة